السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ميرالي بودكاست. كانال كان اينو مقعدرناي ميرالي بودكاستي وكانال اينو كسو قدبين دونو aragtiyo iyo hadba wixii deegaanka Soomaalida ku cusub. Kanaalkan waxaan u furnay in aynu xogaa wacyi ah ku kala qaadano inagoo si toos ah u hadlana oo aan qoraal waxba meel ka akhriyin inagoo si toos ah u hadlana oo qoraalka meel ka akhriyin ayaynu kanaalkan wax ku soo gudbin doonaa insha Allah. marka kanaalkan waxaan ugu talagalay kanaalka hadalka hadii si kale aynu dhigno inta badan kanaalkan wuxuu noqon doonaa kanaalka hadalka oo kaliya aynu ugu talagalay. waxaan isku dayi doonaa inaynu barnaamijyo kala duwan ku soo gudbino kanaalkan waxaanu ku soo gudbin doonaa xaqiiqatan wax aad iyo aad idin anfaca. igraale hada waxa soo galay call sida darteed codku yara kala go'ay. marka kanaalkeenan waxaanu ku daafurnaa barnaamijkan oo aynu ugu talagalnay jiilka burburka. waxaynu ka hadli doonaa dad dhalinyaro ah. waxaynu ka hadli doonaa dad dhalinyaro ah oo aad la yaabsan sidii u nool yihiin iyo afcaasha ay sameeyaan sida u fikirayaan iyo marxaladda nololeed ay ku jiraan. jiilka waqtigan waa jiil aad la yaabi doontid markaan aad iyo aad kugu sharxo. laga yaabaa in badankiinu garate laga yaabaa in badankiinu ogtihiin oo aad aragteen dad noocan ah. haddaan in yar qashidin siiyo waa dadka meelaha ku soo qoray isoo follow garee like isaar waa dadkaas weeyaan nabiga ku salli oo like isi walaal dadkaas weeyaan dadka saayidhahda weeyaan. jiilkaas aynu ka hadlanaa maanta. jiilkan aynu u bixinay jiilka burburka waa jiil akhlaaq ahaan aad iyo aad u liita oo xagga aqoonta ibirka sababtoo ah hab qoraalka ay xataa siday wax u qorayaan markaad aragto waxaad ka garan kartaa dadkaas inay yihiin dad aan waxba baran oo laakiin wax barta. markaan leeyahay dad aan waxba baran oo wax barta waa dad waalidiintoodu ay jaamacadaha geeyaan oo iskuulada dhigta oo lacag laga bixiyo haddana waa dad aan waxba baran oo waa dad magacuyaal ahaan meesha u taga. raalinayga hadade maadaama ay tahay podcast-kii horeeyay mobile ayaan codka ku duubayaa. والله ما كرن كره مستقبل كمجدة دليل هذا النوع أنا سويه وايو هو ضد نلول تيها كنول هل كاي كده بين دون أنا إلهي يوم بقياس كره وحضر كساقفين أو كسو قرية فلو يسوده هو قفين أو سوير كيس هذا كسيد تلاقي هي أو حتى نفلو يسوده يسوباقو ولا لايك يسار بوست عصب أي يالو الله مقن ليك باك يربلي يسوقل waxyaalo la mid oo malaayacni ah dad waaweyn oo ku soo qoriyay weeyaan. inta badan anigu wallahi dadka noocaas markaan arko carruurta noocaas markaan arko iska baloog garaya sababtoo ah wax alla wax laga faa'iideeyo male waa dad lagu khasaaray. markaan leeyahay carruur uma jeedo inay yihiin dadkaasi carruur dhaba laakiin waa dad caqli carruur ah oo caqligoodu au ka carruurta xataa ka sii liito. dadka noocani waxay intaasba ku darsadeen xishood la'aan sababtoo ah wax kasta oo ay ku hadlaan waa wax laga yaqyaqsoodo Facebook postidooda hadaad eegto xataa dadkaas waxay leeyihiin dad caan oo baraha bulshada wax ku soo gudbiyo oo balaayiin qof ay ku xiran yihiin. waa dadkan prankiska inta badan sameeya habal saa dhulka ugu jiiday habal saa ku yiri waa dadka noocaas weeyaan waa dad aad garan kartaan nolosha ay ku nool yihiin. dadka noocani inta badan waa dad dhalinyaro u badan waxaana maskaxda madoobay ayaan oran karnaa muuqaalada anshaxmada ah sababtoo ah muuqaalada anshaxmada waxyaabo laga dhaxlo ay kamid tahay waxani maalin kasta waxay soo gaadhaan malaayiin fariimood oo dhankooda iga yimaada dadkaas iyagoo aanad fahmin wax alla wax ay ka hadlayaan xataa qaar baa koodhanay lacag soo dir. markaas dadka noocaas waxaan uga digayaa ummadda Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan oo carruurtoodu inay saa noqoto. carruurtaadu hadday dadka ku xidhan tahay oo ay channelada noocaas ay ku xidhan tahay ama baraha bulshada noocaas dadka nooca uga dhaqma hadday carruurtaadu ku xidhan tahay oo ay daawadaan hadhow waxa soo baxaysa in carruurtaadu ay taageer noqdaan oo dad aan la fahmi karin wax la wax yihiin
inay saas noqdaan ba macquul ah. yacni inta badan dadkan waxyaabaha ay caanka ku yihiin ee aad la yaabaso marka Facebook la joogo gaar ahaan waxaad arkaysaa iyagoo leh caanow kuma hayo, wax garad looma sheego, dulmar samee, muhiimaddu waa tigta. inta badan waxyaabaha ay caanka ku yihiin waxyaabahaas ka mid ah. marka waxaan oran karnaa waa jiil burburay oo nolosha ka dhacay. dhinaca dumarka kuwan sheegnaa waa rag marka xagga hablaha la eego, haddaad jiilkaas aad doonayso inaad haweenkooda ogaato waa ku niikiya TikTok isruuxa, yani aad aragtay oo garanaysan TikTok iyo Facebook iyo meel kasta dadkan ka niikiya hablaha tana aan asturnayn dharka ku dhagdhagsan xiranay 24 saacadood Facebook soo boosto gareynaya, TikTok soo boosto gareynaya muuqaal aad iyo aad u qaab daran oo xataa aan xayawaanku xataa aanu sameeyeen. dadkaas weeyaan wax alla wax laga faa'iideeyna ma leh. yani marka qof saasa ku xiran tahay oo malaayicni ku soo gudbinaya oo aanad waxba ka faa'iideyn, ilaahay halkan kelmadna ka yeelay waxa laga yaabaa in aadna mustaqbalka dambe aad sidoo kale noqoto, sababtoo ah wax kugu socdo wax malaayicniya qosol muuqaalo tiiha oo dad nolosha ka dhacsan. يعني habal dhulka ku jiiday barankis baanu sameynay sidan waxyaabo la iska ilaaliyo ay tahay in carruurta waliba laga ilaaliyo, qofku isagu ismaamulaya moogtahay oo waxyaabaha noocaas ah dadka soo gudbiyeen aad iyo aad looga warhayo carruurta laga ilaaliyo weeyaan. marka Allahumma salli ala Muhammad podcast-geena maanta intaas ku eegyahay waana hordhici kanaalka Miraale podcast aan ugu talagalay. insha Allah mowduucyo aynu soo baarnay oo dhan walba aynu ka soo eegnay oo tafatiran oo aad iyo aad idin anfaca ayaan idin soo gudbin doonaa. ilaahay idamkii muuqaalka like saara college kanaalkan wax hore ayaan ku soo gudbin jiray muuqaalo hore, magacii marka hore uu lahaana wuxuu ahaa maxay channel, magacaan kanaalka ku asaasay weeyaan. imikana Miraale ayaan u bedelay sababtoo ah dhinaca baraha bulshada waxaan ku joogaa Miraale, hadday tahay TikTok, hadday tahay Facebook iyo hadday tahay kanaalka kale ee Miraale muuqaalada ku soo gudbiyaba. marka magacayga oo saddexan magacayga saxdii waa Xasan Cali, Miraalana waa magaca aan baraha bulshada ku joogo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wax yar baan ku darayaa taanadii salaamin. kanaalku imika wuxuu marayaa 154 qof oo kaliya. marka ilaahay hal qofna ka yeelay dadku haday daawadaan wax ka faa'iidaan ban inta badan xoog ka saaraya. marka aniga muhiimadeedu ma aha in yani dad badan, laakiin wax muhiimadeedu waxa weeyaan in wax faa'iido leh soo gudbiyo dadku iyaga iska yeemanaya insha Allah. halkaas ayaan ku joojinayaa. aad iyo aad baan idin salaamayaa asxaabta qiimaha badan ee kanaalka ku xidhan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad.